waanu ka fogaanay kulmiye wadani baanu u guurnay anigu hala yaro cadhala baa ogeyday sidaan ugu heesi jiray oon aad iyo aad ugu heesi jiray dee maanta horweyn baan helay horweyn xisbiga kulmiye dheemanta xisbiyada Somaliland weeye isbedelada iyo gadgadoonka waayaha siyaasadda ayaa maanta rafiiq kala dhigay siyaasiyiin ay hore mabaadi'da siyaasadda ugu kala irdhoobeen xisbiga kulmiye waxa uu uga dhignaa xisbi uu hareeyay dulmi cadaalad darro kuna takrifalay hantida danta guud isla markaana aan talada dalka lagu aamini karin waxaan ugu kalifay inaanu ka guurno xisbiga kulmiye waxaan ugu kalifay cadaalad darrada ka jirta iyo musuqmaasuqa iyo boobka hantida dadweynaha iyo danta guud la boobayo iyo maamul xumada baahday iyo maxay qabyaaladda iyo maxay kala qolaysiga iyo hogaamiyaha maanta ay wadaan oo ah hogaamiye dictatoriya oo maanta aan dalku u baahnayn dictatoriyad lagu maamulo ama dalku iyo dalku ay doortaan waayo waxay marayaan dadku 2017 bay marayaan taas yaan ugu kaliftay inaanu ka guurno xisbiga kulmiye wuxuu noqday xisbi dulmi yeeshay oo dulmi sameeyay oo dulun yeeshay oo noqday mid maxay dadweynaha maxay ku joorfalay war xaqana annaga ka nimiyo waxba ma jiraan wax alla wax jira ma jira wax laga baqaano ma jiraane waxa weeyaan cidla halkii idinka jooga halkii maxay ahayday xoogii iyo qarankii iyo xisbigii way isbarkan yihiin anna waxaan idin sheegayaa anigu hala yaro cadhala baa ogeyday sidaan ugu heesi jiray oon aad iyo aad ugu heesi jiray dee maanta horweyn baan helay horweyn ayaan helay maanta ila wuxuu yidhi geel annagaa lehe cid ku faantuu waayey war geel annagaa war waxa weeye xisbi waa kulmiye xisbiga rajada shacabka inay yidhaahaan bilaa calaykum ma waxa rajada shacabka wadani wuxuu ka soo horjeestay in degada la dhiso oo la maalgeliyo wuxuu ka soo horjeestay in airportka inoo dhiso oo inoo maalgeliyo wuxuu ka soo horjeestay in wadada la dhiso oo inoo maalgeliyo wuxuu propaganda ku furay airportkii caqiibada lahaa maxay ahayday hargeysan inoo dhisay bilaa calaykum xisbiga horumarinta qaranka ka soo horjeeday iyo guusha qaranka ayaa rajada qaranka iyo rajada shacabka mise waa rajo la'aanta iyo rogmadka shacabka bilaa calaykum la yaab ma leh oo siyaasiyiin badan oo ku jira xisbiyada ayaa hilmaamay hadallo ay hore ugu duur xuleen xisbiyo iyo siyaasiyiin ay aragtida hore ugu kala duwanaayeen balse dunuufta siyaasadeed ay ku kaliftay inuu xisbigii hore u durayay maanta cudur raadiyo balaynu jallecno mas'uulka ugu sarreeya xisbiga kulmiye oo ah madaxweynaha qaranka waqtigii uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu ka aaminsanaa mas'uulkan oo hadda loo cugtay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer iyo hogaamiyaha maanta ay wadaan oo ah hogaamiye dictatoriya oo maanta aan dalku u baahnayn dictatoriyad lagu maamulo ama dalku iyo dalku ay doortaan waayo waxay marayaan dadku 2017 bay marayaan ragga garbaha maanta haya ee la wareegay waa madaxweynaheena qaranka iyo Mr. Kaahin wasiirkeena arrimaha gudaha waxa weeyaan iyaguna raggii dhiigoodii iyo dheecaankoodiiba u shubay qarankan ee naftooda u haniyeeyay weeye marka la joogo dhanka siyaasadda waxaa jira qaacidooyin ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalidu taas oo halkudhigeedu yahay siyaasaddu saaxiib joogta ma leh balse waxay leedahay dana joogta Mukhtaar Axmed Cali waa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee kambeynka xisbiga wadani u qaabilsanaa gobolka Togdheer 15 bishii 11aad ee sanadkan aynu ku guda jirno ayaa loo doortay gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye gobolka Togdheer waxaanu maanta uu la wareegay xilkaasi uu sheegay inuu ka shaqeynayo guusha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye bulsho badan ayaa isweydiisay sababaha siyaasiyiinta ku jira xisbiyada qaranka ku kalifay inay bulshada u quudhaan hadallo isbuurinaya Abtirsada telefishinka Horyaal Burco